أبشر قارنا أحمد فنان كدادا يراي والدولة دولة لينجري وعلن كتومك كسيتي عندلي كاس عندلي ولا مصيبتي ولا دلي ولا حنوجي وحاس هنا لقى كيني شباب ما هبين ما مانينا ما jacaylkan odayntiya mudan calan in loo lolo oo igu casaadaha cudur igu abuure mar kale iyo muuqaal cusub saaxiibadan ku saaxiibnay channelkeena xogta fanka kulanti wacan wanaagsan meel kasta aad joogtaan u diyaar garooba muuqaalka maanta aan falanqeyn doono kaas oo ku saabsan hooyada dhashay fanaankii al-shabaabka noqdo oo sir badan ka shiftay soona bandhigtay wiilkeeda oo ay sheegtay in marna aysan ku ogeyn kamid ahaanshaha al-shabaab ayadoo sidoo kale sheegtay in lagu qasbay oo la dilay oo koronto lagu qabtay deetana xoog lagu keenay inuu sheegto al-shabaab waa muuqaalka maanta aan falanqeynayno aan saaxiibada xogta fanka ku xiran aan leenahay soo dhawaada ka mid noqo saaxiibada sida joogtada halkan ugu xiran xeelana macluumaadka la xiriira arrimaha fanka madadaalada iyo sheekooyinka xiisaha badan ee ku geedaaman fanka maxay tahay sababta hooyadani ku qasabtay in markan muuqaal video laga soo duuba ayna beeniseen wiilkeeda abshir gaarayn inuusan ka mid yahay al-shabaab ilaa hadda cadeymo intee leeg ee hooyadani soo bandhigtay ma dhabaasa in wiilkeeda loo adeegsaday awood koronto oo lagu qasbay inuu sheegto maxaa ka jira in wiilkan marna uusan ka mid yahay al-shabaab sidee hay-adaha ammaanka dowladda ilaa hadda ay u wadaan baaritaanka abshir gaarane oo ah fanaan sheegtay inuu shabaab ka tirsanaa dhammaan waa warbixinada aan maanta isdul istaagi doono ku saabsan muuqaalkan hooyada dhashay fanaanka shabaabka sheegtay oo sir badan ka shiftay wiilkeedana sheegtay inuusan marna ka mid yahay al-shabaab intaan gudagelin falanqeynta muuqaalkana qadar yaro idhaha halkan waa channelka xogta fanka waa meesha kaliya ka heli karto sheekooyinka la xiriira arrimaha fanka madadaalada taariikhda fanaaniinta kuwa hadda iyo kuwii hore iyo dhammaanba marxaladda fanka ku geedaaman ayaa halkan kusoo bandhignaa daawade adiga qudhaada tala ayaad nagu leedahay oo nala wadaagi kartaa wixii sheekooyin ah oo aad hayso iyo weliba arrimaha fanka ah halkan waa barta rasmiga ah aan kusoo bandhigno arrimaha fanka madadaalada iyo taariikhaha fanaaniinta ka mid noqo saaxiibada sida joogtada halkan ugu xiran subscribe dheh gambareelkana taabo muuqaal walba halkan aan soo gelino oo soo gaaraya ku maasanid haddii aad taa daawada nagu soo biiray soo dhawow isku soo laabasho wanaagsan saaxiibadaan ku saaxiibnay oo halkan channelkeena xogta fanka waxaan gudagali doonaa falanqeynta muuqaalkeena maanta hooyada dhashay fanaanka al-shabaabka ay sheegtay ayaa sheegtay in wiilkeeda marna uusan ka tirsaneyn kooxda al-shabaab waa muuqaalkan eegi doona sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah ee mas-uuliyiinta dowladda oo xildhibaano ka mid ah kuwaas oo channelkeena youtube-ka xogta fanka qaarkood la soo xiriiray iyo kuwaan xiriir toosa la sameyno ayna wax ka weydiinayno arrintan kumilanka al-shabaab ay ku milmeen hay'adaha dowladda iyo weliba in al-shabaab markan fankii ay soo galaan waxa ay ka dhigan tahay waa dhammaanba arrintan maanta aan doonayno inaan dul istaagno intaan gudagelin aan eego muuqaalkan hooyada dhashay fanaanka al-shabaabka sheegtay ayaa sheegtay in wiilkeeda marna uusan ka tirsaneyn al-shabaab waxayna sheegtay in lagu qasbay sheegashada oo ah in uu sheegto inuu ka mid yahay koox argagixiso ah hooyada oo oynaysa waxay soo duubtay muuqaal ayada muuqaalkana aada u muuqda mid aada ugu murugeysan wiilkeeda abshir gaarane oo sheegtay in ilaa hadda aysan ku ogin meelna aysan ku sheegin muuqaalka maamada laga soo duubay oo lagu baayay baraha bulshada ayaa noqday mid saameyn weyn ku yeeshay marka loo eego tan ilaa xalay oo dad badan aada u wadwadeen oo la isweydiinayay hooyadan iyo weliba qayladhaanta kasoo yeeraysa xilli hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisr ay soo bandhigtay muuqaal ay hay-addu ku sheegtay muuqaal laga soo duubay fanaanka abshir gaarane oo afkiisa ku qiranaya ka mid ahaanshaha ururka al-shabaab hooyada ayaa dalbanaysay in fariinteeda la gaarsiiyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka sida muuqaalkan video aad ka daawataan waa hooyada muuqaalkani laga soo duubay iyadoo ku sugan gurigeeda waxay sheegtay in wiilkeeda abshir gaarane ay ku ogeed fanaan oo qura laakiin iyadu ay xaqiiqa ay u hayso ayna og tahay in marna uusan al-shabaab ka mid ahayn hooyada dhashay fanaanka abshir gaarane iyadoo ilmeynaysa waxa ay sheegtay
in wiilkayga la jir diray kadibna xoog ayaa lagu yiri qiro inaad ka mid tahay ururka al-shabaab oo sheego inaad ka mid tahay fadlan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali kheyre fariinteeda hala gaarsiiyo yaa la dhayeelsan wiilkayga mahan al-shabaab mana ku ogeyn wuxuu ahaa fanaan ka mid ah fanaaniinta muqdisho ayay ku tiri hooyada muuqaalkan laga soo dubay waa hooyada cunugeeda laga haysto waliba si xoog ah ayaa lagu yiri sheego oo qiro inaad ka mid tahay ururka al-shabaab sida ay hooyadana sheegteen waxa ay tiri hooyo tan iyo markii aan warkan ka maqlay suuqa la soo galshay waan suuxay waqti badan ayaan suuxsanaa oo xanuun aan ihaya ayaa igu soo kacay oo sonkorta ay ka mid tahay dhiikar wiilkayga fanaan qaran ayuu ahaa mana ahayn mid shabaabna kuma ogi ayay ku celcelisay hooyada oo dalbatay in muuqaalkeeda la gaarsiiyo madaxda qaranka sida madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddaba daawadayaal muuqaalkan oo laga soo duubo hooyada ayaa ahaa mid ay ku celcelinaysay abshir gaaran inuu ahaa wiilkeeda fanaan qaran marna aysan ku ogeen ka mid ahaanshaha ururka al-shabaab haddaba daawadayaal aan daawano muuqaalka hooyadan oo ay ku beeninayso in wiilkeedu ka mid ahaa kooxda al-shabaab bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali weyn waa idin salaame salaanta islaamka idinku salaame waxaan nahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ah oo wiilkeeda ka xiran yahay oo yacni oo wax meelaas joogana aan ogeyn hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ahaan nahay Soomaali weyn waxaa idinka codsanayaa wiilkaas oo si masabid lagu xirtay abshir gaarana axmed fanaankii daada yaraay oo dowladda u ololeyn jiray oo calanka tunka ku sitay aan dhalay kaasaan dhalay waa la masabitay waa la dilay waa la xanuujiyey waxaas heena laga keenay shabaab ma aha habeen ma ahan maalina ma ahan culumada diinka madaxda dowladda madaxweynaha farmaajo ra'iisul wasaare cali kheyre baarlamaanka waxaan ka codsanayaa inaan wiilkaygi xuquuqdiisa waa la dhumiyey sharaftiisa waa la dhumiyey waa lagu ciyaaray waxaas heena laga suubi waa la jir dilay waraas heena laga keenay waxaan rabaa in meelaas ku jiro ma ogi maalintii waan xanuunsaday maantaan soo roonaaday maalintii masabidka beenta aan maqlay saan u dhacay maantaan soo roonaaday Soomaali haddaan nahay hooyo Soomaalideeda ahay xanuun ay haaya cunuga iga maqan waxaan ahayn korka laga saaray waxaan idinka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed oo sharafta leh madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare kheyre gudoomiyaha baarlamaanka culumada diinka Soomaaliyeed odayaalka Soomaaliyeed ugaasiyada in la kaco cunugayga li raadiyo حقوق نسانك اللي استاجا يعني ربا عنو جاي حريتي سكذا اللي يقصوا عليه الدم بينها لصاري أو حقوق لو صاري ولا جرد لي أو لقى هذا الشيء ما هن شباب ولا جيسنا ما نقن دونا دولة داس عالم كودي عالم كصوماليا سوقيا هي واكو ساحدة واكو ساكعة فرماجة أبشر على ناس كله لا إيمان أنت لو سارة قارت سكوجو وتهبني ما الناس كو تاجناي واكو تاجر سنة عنو جاي حقوق دي سين لو سو عليان ربا اللي سو عليان ربا مالكم الشيء اللي سو دايان ربا حقوق دي سلو سو عليان ربا وادل يا الصومالية شباب ما هبين ما مانين ما وهجاك markan ka soo tagno hooyadan oo arintan beeninaysa laakiin waxa la janaalkeena YouTube kan ku baahinay muuqaal hay'adda NISA ay xil hore soo bandhigtay ay wiilkan ay ku sheegtay inuu kamid ahaa ururka al-shabaab wiilka qudhiisa ayaana qiranaya in waqti badan oo kamid ahaa ururka al-shabaab uu la shaqeynayay sida muuqaalo iyo waliba warbixino hore aan u soo bandhignay ku baahinay janaalkeena YouTube ka abshir gaaran ayaa kamid ah fanaaniinta reer Muqdisho gaar ahaanse wuxuu kamid ah fanaaniinta da'da yar ee ka shaqeynaya gobolka Banaadir waaxda fanka ee gobolka waxaana si kamay warbixintiisa usoo shaabaxday janaalkeena YouTube ka xogta fanka ayaa ahayd warbixintii ugu horeysay ee xogta wiilkan oo hay'adaha ammaanku ay gacanta ku dhigeen markaan baahinase
kadibna maalin kadib ay hay-adda nisa ay soo bandhigtay muuqaalka wiilkan oo qiranaya kamid ahaanshaha al-shabaab. ugu dambeyse hooyadiisa ayaa mar kale xiriir toos ah la soo sameysay kasokow ay jirta muuqaal hooyada laga soo duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada. haddaba muuqaalkan qabsaday baraha bulshada kasokow dhanka kale waxaa jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwa siyaabo kale arrintan si weyn kaga falceliyeen. fanaaniin ayaa kamid ahaa oo ayna ka hadlay. Professor Maxamed Cumar Dalxa waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sidoo kale waa fanaan weyn oo dhowr hees oo qaaday Alfanaan Dalxa oo mar laga weydiiyay xariga shakhsigan Abshir Gaarane iyo kamid ahaanshihiisa al-shabaab waxa uu yiri waa hagaag. Professor Dalxa ayuu kaasi ahaa. haddaba marka laga soo tago dhinacyadan kala duwan ee ka hadlay arrintan, Abshir Gaarane ayaa sheekadiisu waxay noqotay mid si weyn Soomaalidu u hadlayeen. dadka qaar ayaana ku sheegaya inay aad u adag tahay markan in la helo dad la aamina is-aaminaaduna aad u yaraatay maadaama ay sheegeen in al-shabaab markan ay adeegsanayaan fanaaniinta. Abshir Gaarane ayaa si kama kaga soo muuqday muuqaal nisa ay soo bandhigtay asagoo qirtay in al-shabaab uu ku biiray sanadka markuu 2013 al-shabaabna u qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha, sidoo kalena uu ahaa fanaan ka shaqeynaya fanka. taasoo dad badan ay rumaysan waayeen marka loo eego muuqaalka nisa iyo weliba sheegashada fanaankan. dadka ayaa qaarkood sheegaya in al-shabaab markan ay ku milmeen hay'adaha dowladda, sidoo kalena meel walba al-shabaab ay xubin ay ku yeesheen marka loo eego hadiiba fanaaniintii ay qaarkood sheeganayeen kamid ahaanshaha al-shabaab. waxay sidoo kale al-shabaab la sheegayaa in xafiisyada dowladda iyo weliba xarumaha kale ugu muhiimsan ay ku yeesheen shakhsiyaad saaxiibo gaar ah leh. janaalkana youtube-ka xogta fanka ayaa inta badan waxaan dabagal iyo baaris dheeraadan ku sameynaa warbixinada noocan oo kale ah, anagoo tan iyo markii ay soo baxday warbixintan aan dabagal xoogan ku haynay. hay-adda nisa ayaa la sheegay in baaritaanka Abshir Gaarane hadda ay soo gabagabaysay loona gudbiyay maxkamadda militariga, kaas oo laga yaabo toddobaadyada soo socda inuu kasoo hormuuqdo Abshir Gaarane maxkamadda ciidanka qalabka sida, kadibna uu wajaho xukunka maxkamadda ay ku ridi karto, kaas oo ila xogogaal iyo weliba xubno kamid ah maxkamaddu ay noo sheegaan in Abshir Gaarane uu wajihi karo xabsi ciidan oo gaari kara 5 sano ilaa 6 sano ama 8 sano xabsi ciidan, maadaama al-shabaab uu u qaabilsanaa qaybta dhaqaalaha oo dadka dilalka ka geysta magaalada Muqdisho oo dhaqaalahooda bixin jiray, sida Abshir Baqudi soo qortay. ciqaabta noocaas ah ayaa lagu sheegay inuu wajihi karo Abshir ay tahay ugu badnaan 5 sano ilaa 6 sano ilaa 8 sano xabsi ciidan, waana mid mustaqbalkiisa ka go'i doonta marka loo eego tiradan xabsiga ciidan ee hadda uu wajihi doono. warbixintan ayaana saaxiibayaal maanta aan ku eegnay muuqaalkeena ee aan ku falanqeynayna Abshir Gaarane oo hooyadiisa soo hadashay dalbatana in wiilkeeda laga been abuurtay uusan ka mid ahayn al-shabaab. waa muuqaalka maanta aan falanqeynaynay saaxiibada ku xiran janaalkana xogta fanka oo aan leenahay. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. halkan waa xogta fanka. daawade waa nala wadaagi kartaa wixii aragta iyo macluumaadyo aad hayso iyo sheekooyin aad isleedahay waa kuu mudan in daawadayaasha loo soo baahiyo, iyo haddii ay ku haysto qisooyin adiga kugu dhacay waa nala wadaagi kartaa. waxaana fariimaha nagu soo diri kartaa barteena gaarka ee gmail-ka oo aad ka heli karto qaybta youtube-ka markaad gasho kadib aad aado qaybta about-ka ay ku qoran tahay. halkaas waxaad ka heli kartaa nambarada nagala soo xiriiri karto, sidoo kale waxaad ka heli kartaa gmail-ka inaad fariimaha nagu soo diri karto. waqti walba tiimka xogta fanka ayaa diyaar ah oo kaga soo jawaabi doona fariin walba aad noo soo dirto, falcelinteeda ayaana heli doontaa. waxaa halkaas sidoo kale aad nagu soo diri kartaa fariimaheena whatsapp-ka nambarka oo isla ku qoran qaybta dambe ee shaashada, oo weliba qaybta youtube-ka markaa gasho kadibna about-ka sii gasho aad ka heli karta dhammaanba kontaktiyada nambarada channelkana youtube-ka xogta fanka oo aad la wadaagi karto warbixino, muuqaalo, sheekooyin iyo kuwa xiiso badan. xogta fanka bulshadu ka yimid bulshadana iska leh. muuqaalkiina maanta saaxiib yaal waana genta